siyaasadda udub dhexaadka looga dhigay qabyaalada iyo isku xaysiga ee bulshada qalubteeda qasabka lagula gelinayo qaab hadaleed looga dayday sidii ay khudbadaha u jeedin jireen kaliya soo maray dalalka Carabta iyo Yurub oo ay kamid ahaayeen Adolf Hitler iyo Saddam Hussein waa mid uu ku caanbaxay ra'iisul wasaare Khayre oo xilkan u magacaabay madaxweyne Farmaajo ay xidid yihiin warbixintana waxa ay qeexaysaa xukuumadda xayndaab ka samaysatay xarumo yar oo isku muuqda oo aan xukumin meel xamar ka baxsan iyo Xasan Cali Khayre oo la magacaabay xukuumadda nabad iyo nolol haddaba muwaadin aan qiimeynaa xaaladda dalka uu ku jiro dibna aan u jaleecnaa habdhaqanka golaha fulinta si aanan hiiraac ugu noqon siyaasad gaar ah oo naga marin habaabinaysa mustaqbalkeena waana inaan ogaanaa dadkeenu nabad ma haystaan nololse ma haystaan dhanka nabadda inta xilka waayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxa ka dhacay in ka badan 70 qarax iyo weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda dhow ee guud ahaan geeska Afrika waana hal ama labo inta habeen ama maalin aan dad lagu dilin magaalada Muqdisho haba ugu badnaadeen askar shaqaale dawladeed dhalinyaro bajaajley oo si bareera loo toogtay iyo qaar kamid ah ergadii soo doortay xildhibaanada ra'iisul wasaare Khayre u suurtageliyay inuu kursiga ku naaloodo kuwaasi oo mudnaa inay helaan ammaan iyo daryeel maadaama ay qayb ka qaateen dhismaha qaranka taas beddelkeeda lama hubo in akhbaarta geeridooda ay gaartay ra'iisul wasaare Khayre oo ku mashquulsan safar dibadda ah iyo xilka qaadista xubnaha golihiisa wasiirada kuwada diida inay u adeegaan danihiisa gaarka ah مسؤولينته وشقده كعيرينا waxaa kamid ah wasiirka hore arrimaha gudaha oo maalmo cadceed u taagnaa difaaca xuduudda oo lagu soo duulay asaga iyo wasiirada la midka ahana waxa lagu bedelay muxaafidiin oo hoggaansan siyaasadda kooxaysiga gurucaan ee quudareynaysa kuraasta doorashada 2020 ra'iisul wasaare Khayre waxa hadal uu magacaabay shakhsiyaad aan lahayn aqoon siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo aan danaha qaranka kala hadli karin wasiirada dhigooda balse marka ay Muqdisho dib ugu soo laabtaan bulshada u sheega warar been abuur ah oo aysan kala hadlin madaxdii ay soo arkeen taas oo muujinaysa in xilka qaadistu ay tahay xeelad lagu marooqsanayo xukunka sida uu qabo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ama ha noqdo wasiir qaabilsan maartay amuraha arrimaha bulshada ama midka dhaqaalaha ama ha noqdaano arrimaha kale ee difaaca iyo nabadgelyada wasiirkiiba waxa waaye wuxuu aadayaa meelaha wasiirada asaga ee ayaga la rabo inuu wax kala maartay yimaado kabaajatigiisii iyo aqoontiisii iyo waayo aragnimadiisii inayba u saamahaynin inuu meeshaasi wax la tago ama mashruuc uu la tago ama wax dadka Soomaaliyeed dan ugu jiro uu meeshaasi uu hordhibo sidoo ku tago ayuu ku soo noqonayaa airport ku yimaado shir jira inuu qabanaa ninkii waxa waaye isagoo jaaqo weyn oo faanay oo wax soo qabtay oo kale ayaa ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay dejiyeen qorshe lagu afgaminayo golayaasha dawladda si loo afduubto doorashada soo socota waxa ayna samaysteen ciidan gaar ah oo loogu magac daray guutada 14 Oktoobar oo aan ka tirsanayn afarta ciidan ee qaranka aanan la soo marsin baarlamaanka si loo waafajiyo sharciga dalka ciidankaas oo loo qalabeeyay sidii militariga ayaa bartamihii bishii Juulaay la wareegay ammaanka magaalada Muqdisho iyadoo xukuumadda Khayre ay kala dirtay ciidankii xasilinta kadib markii lagu guuldareystay ujeedooyinkii loo aasaasay sargaalkii hogaaminayay ciidankaasna waxa loo magacaabay taliyaha booliska tilaabadaas oo god dheer ku ridaysa kalsoonidii lagu qabay ciidanka booliska xukuumadda Khayrena waxa wasaaradda maaliyadda ay ku amartay inay si joogto ah u bixiso mushaaraadka guutada 14 Oktoobar oo aan meelna kaga qornayn sharciga dalka lagana cabsi qabo in loo adeegsado beegsiga siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka si taladu ay gacantooda ugu sii jirto kooxaysiga Khayre iyo Farmaajo xildhibaan hore Maxamed Cumar Geedi ayaa sheegay in askarta guutada 14 Oktoobar in lagu soo xulaynin jeclaysi iyo qaab ka baxsan shuruucda ciidanka iyadoo aan lagala tashan wasaaradda difaaca iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka taas oo micnaheedu uu yahay in taliska kaliya wadaniga ah ee baraha bulshada inuu ka weyn yahay sharciga dalka ciidankii xoogga dalka oo dhisan yahay oo intii laga bilaabay ay dhisan tahay wasaaradda gaashaandhigga ay dhisan tahay ayaa waxaa la sameeyay ciidan lagu magacaabay 14 Oktoobar oo aan loo marin wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga aan loo marin oo ninjeclaysi iyo dad shakhsiyaad gaar ah loo dhisay la keenay ayna daliil cad u tahay in hadda maalintii ugu dambeysay mar ayagoo military la sheegay ummadda loo sheegay marna loo sheegay booliska la hoosgeeyna wasaaradda maaliyadda lagu amray inay lacag siiso macnaheedu waxa waaye ciidankii hore budgetka uu ku jira waxa maanta in lacag la siiyo loo amraayo maanay ku jirin marka iyada lafteeda waxay tahay corruption in wasaaradda maaliyadda xukuumadda Khayre si ay u daboosho guuldarooyinka sugidda ammaanka caasimadda waxay adeegsatay farsamooyin maaweelo oo ah xilka qaadis isdaba joog ah ay ku samaysay taliyaasha ciidamada si ay iskaga sii jeediso indhaha bulshada sidoo kale waxa ay ku fashilantay in ay Muqdisho ka durjiso al-shabaab oo dhowr jeer la wareegay degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo aan ka dheerayn caasimadda iyo inay
xukunka gaarsiiso meel ka baxsan xamar. Ra'iisul Wasaare Khayre waxa guuldaro weyn uu kala kulmay dhanka dib u heshiisiinta hal sano iyo bar in ka badan oo xafiiska uu joogo dib u heshiisiin uma sameyn hal tuulo oo ka tirsan 18 gobol ee dalka. marka laga reebo in xukuumaddiisu ay ka been abuuratay heshiiskii Puntland iyo Galmudug oo dhamaystirkiisa uu garwadan ka ahaa wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa mana jirto hal tuulo oo al-shabaab ay kala wareegtay. sidaas daraadeed dagaal beeleedyada iyo inaan calanka jamhuuriyadda laga taagi karin qaybo ka mid ah dalka waa astaanta gaarka ah ee xukuumadda nabad iyo nolol. Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu ku fashilmay siyaasadda arrimaha gudaha iyo xiriirka dawlad goboleedyada waxaana xukuumaddiisu ay samaysay xasilooni darro siyaasadeed oo ugu dambeyntii xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee Hirshabelle. sidoo kalena waxa ay isku dayday in qasab xilka looga qaado madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyadoo la adeegsanayo Cali Gacal Casir oo isku hayb yihiin Ra'iisul Wasaare Khayre iyo Maxamed Xaashi Cabdi Carabey oo ku hayba madaxweyne Farmaajo. arrintaas oo sababtay in hogaamiyaasha maamul goboleedyadu ay ku dhawaaqaan golaha iskaashiga dawlad goboleedyada si ay iskaga difaacaan siyaasadda qabyaaladda iyo kooxaysiga lagu laray ee tigidhada loogu siibayo maamulada dhisan. gaashaanbuurta maamul goboleedyaduna waxaa fursad muhiim ah ay siisay dawlado shisheeye inay heshiis lagu burburinayo midnimada iyo qarannimada Soomaaliya inay la galaan madaxda dawlad goboleedyada waana cawaaqibta laga dhaxlay faragelinta aan laga fiirsan ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. haddaba nabad iyo nolol ma xafladaha oo laga hanjabaa mase waa in hubka iyo ciidanka qaranka lagula dagaalamo siyaasiyiinta maxaabiis daryeel la'aan xabsiga loogu dilo bukaan xaalad degdeg ku jira oo jidkii goob caafimaad loo marsiin lahaa dhagxaan iyo ciidan lagu gooyo iyo danyarta oo 5 gaari u raacda meel isku muuqata awoodina weyda inay helaan adeegyada ay magaalada uga baahan yihiin waa bilada dahabiga ah ee ay qoorta suratay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Ra'iisul Wasaare ku celceliyay dagaal ka dhana musuqmaasuqa oo wasiir ka tirsan xukuumaddiisa ay isku casisho musuqmaasuq lagu sameeyay gurmad loogu talagalay dad musiibo ay ku habsatay waa ilbaxnimada cusub ee la timid xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre oo sidoo kale musuqmaasuq daraadiis lumisay taageeradii Mareykanka uu siin jiray ciidanka xoogga dalka. dhanka musuqmaasuqa maaliyadda 3 bilood ee ugu horeysay sanadka 2018 gobolka Banaadir waxa canshuur ahaan looga qaaday lacag gaaraysa 42 milyan iyo 50 kun oo dollar taasoo ka dhigan in 8 bilood kadib gobolka Banaadir laga qaaday canshuur gaaraysa 99 milyan iyo 20 kun oo dollar. sidaas oo ay taana dadka gobolka Banaadir ma helaan adeegyada ay u baahan yihiin ee caafimaad iyo waxbarasho lacag la'aan ah jidadkana laguma dhisin lacagtaas waxaana intaas u dheer canshuur dheeraad ah oo xukuumadda ay ku soo rogtay oo aan baarlamaanka la soo marsin. haddaba xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir xagee ayay ku bixiyeen lacagtaas mase sidaanba ah nabadda iyo nolosha uu sheeganayo Ra'iisul Wasaare Khayre. shaqada bulshadu ay aragtay Ra'iisul Wasaare Khayre oo Muqdisho ka qabtay waxay ahayd in gaadiid dagaal iyo ciidan la moodo in ay duulaan u socdaan uu ku tago dekedda iyo bangiga dhexe iyo sidoo kale sheegashada shaqooyin ay horay u qabatay xukuumaddii ka horeysay. dawladda ay horboodayaan madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre waxa dawladihii ka horeeyay ay kaga duwan tahay adeegsida kooxo baraha bulshada ku faafiya dacaayado lagu sharaf dilayo dadka loo arko inaysan taageersanayn siyaasadooda. qaranka Soomaaliyeed waxa uu ka kooban yahay dalka iyo dadka waana qiyaano qaran in shisheeye la siiyo dad ama taaka ka mid ah ciidda Soomaaliyeed. sidaas oo ay tahay Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa Itoobiya u gacan galiyay muwaadin Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax asaga oo ka hor yimid raaligelin madaxweyne Farmaajo uu siiyay jamhadda xoreynta Soomaali galbeed. sidaas daraadeed nolosha iyo nabadda Khayre ma qaraxyo iyo qiyaano qaran ba